casharka kan waxaa iskale dadka isqaba sababaha keena inuu ninku seexdo galmada kadib si toos ah maxaa keeni kara maxaase yihiin waa mawduuceena maanta weeye waa arrin kuu muhiima inaad ogaatid dumarka intooda badan waxay ku tiriyaan ninku markuu seexdo xiriirka galmada kadib si toos ah inay arrintaasi tahay inuusan ninku arrintan iyo galmadan uusan raalli ka ahayn ama uusan dareemin wax raaxa ah laakiin arrintaasi fikirkaasi dumar badan qabaan waa mid khalad ah asbaabo kala duwan ayaa keeni karta ninku inuu hordo u cararo markuu galmada dhammeeyo isla markiiba arrimahaasi waxaa ka mid a qaar u noqonaya xagga nafta oo nafsaani ah iyo kuwo u noqonaya xagga jirka oo xiriir halkaa la leh dhegayso arrimaha ugu muhiimsan ama asbaabta ugu muhiimsan ugu waaweyn ee ninkaadu isla markii u seexanayo xiriirka sariireed kadib ama ninka uu xaaskiisa arrintaa la sameeyo tusaale oo kale hadday arrintaasi dhacdo habeen mucdamka dadkuna sidaasay aaminsan yihiinoo galmada iyo howlaheeda habeen ayay u qabaan inay iska leedahay laakiin ma oga maalintu inay ka fiican tahay xiriirkan haddii habeen uu dhaco sideedaba habeenka jirka bili-aadanka guud ahaan iyo jirka ragga gaar ahaan habeenkii waa daallan yahay xitaa hadduusan shaqo maalintii qaban iska badaaba qofku hadduu shaqaynayo ninkuu shaqo dukaan leeyahay ama howlo kale uu ka shaqaynayo habeenkii jirkiisu waa daallan yahay hoosu dhac baana ku imaaday dareemayaashiisa taasoo ku riixaysa ninka inuu dareemo lulmo iyo hoosu dhac xubnihiisa kala duwan ku imaada taasoo maskaxdiisu ay u sheegayso in markuu arrintan sameeyo galmada iyo sariirta howlahaas inuu seexanayo dareenka ka hor ninka agtiisa jirkiisu hormoonaad kala duwan ayaa soo wajaha si weliba aayar ilaa uu gaarayo inuu damo ou seexdo ninka dareenkiisu si yaro oo fudud markaas wuxuu dareemayaa lulmo iyo daal taasoo ah baahi ku riixaysa hoosu dhacaas galmada kadib maskaxdiisu iyo dhiigmareenadiisu dheecaamadu hormoonkiisa burulaakitiinka dhammaan waxaasoo waxay ka saacidayaan ama ay ku khasbayaan ninka galmada kadib isla markiiba inuu seexdo maadaamuu daallan yahay gaar ahaan markay howlihii imaadaan tuurka iyo waxa la midkaa awalan qofku inuu rumaystaa la rabaa uu ogaado ninka agtiisa dadaal weyn ayaa laga rabaa oo jireed oo ka weyn midka dumarka sidaa darteed jirkiisu wuxuu u baahan yahay xoogaa deganaansha oo raaxaysa si awood u helo oo arrintan ugu fuliyo awooddaasoo ka weyn mid dumarka ninku waa qarinayaa neefsigiisa intuusa gaarin biyo dhici galmada taasoo yaraynaysa oksijiinkiisa gudaha ku jira oo la doonaya inay hesho maskaxdiisa taasoo sababaysa inuu dareemo lulmo iyo daal wahsi iyo hoos u dhac waxaa laga yaabaa arrintaasi inay sii socoto ilaa maalinta labaad arrimahan oo dhan waxay ka qayb qaadanayaan ninkaadu markuu ama ninka xaaskiisu markuu la sameeyo gogasha in uu isla markiiba hurdo u cararo marka gabaryahay ha aaminin in calaaqadaadan iyo xiriirkaadan uusan raalli ka ahayn ee arrin waxaa jirta dabiici ah oo adiga ama asaga la rabay inaad waqti siisaan laakiin waqtigeeda aad ka qaateen oo aad dadejiseen marka ha isdadejinine caadi intaad iska dhigtaan waqtiyada ugu habboon ee hawshaasi ku fiican tahay la beegsada barnaamij ka hadlayna waa soo gelin doonaa aad baad u mahadsantihiin jazaakum allah